maraykanka ma aha mid weligiisu taagnaanaya difaacidda Yurub oraahdaas waa mid naxdin leh oo calawsaad ka dhigaysa riyooyinka madaxda reer galbeedka oo ammaankooda iyo nabadgelyadooduba ku tiirsanaa gaashaanbuurta NATO tan iyo dagaalkii qabuuba ama ku xirnaa awoodda weyn ee military ee Maraykanka ilaa uu dubaha Ruuska garaacay durbaanka dagaalka ee Ukraine oo halkan wadamada Yurub ay ka bilaabeen inay ka fakaraan waxa ay iska indhitirayeen 10 sano taasoo ah daciifnimada ciidamada Yurub sidaas awgeed riyada ciidan midaysan oo reer Yurub ah ma jiri kara Yurub miyay dhab ahaantii awoodaan inay ka baxaan guntiga NATO tabinteennan Tifaftir Media ayaan ku qaadaa dhigaynaa Yurubta midaysan xagga ciidamada riyadan oo ah mid aan weligeed rumoobin markii uu Ruushku ku duulay dalka Ukraine ee Yurubta bari qaaradda ayaa hurdada ka toostay iyadoo aad uga naxday inay isdifaaci kari weydo haddii uusan Maraykanku soo dhaxgelinaynin saanadihiisa iyo kaydadkiisa militariga waa daciifnimo iyo liidnaan soo gaartay qaaradan oo aan lahayn istaraatiijiyad difaaceed oo ay wadaagaan taas oo ka dhigtay mid ku tiirsan xulafada NATO ee uu Maraykanku hogaamiyo sidoo kalena waa waxa madaxa arrimaha dibadda iyo ammaanka ee midowga Yurub Joseph Borrell uu qiray horaantii sanadkii hore isaga oo sheegaya in dagaalka Ukraine uu yahay gambaleel digniin ah dhammaan wadamada Yurub kaas oo ku saabsan awoodooda ciidan walaaca ayaa yimid iyada oo Washington ay ka bixi karto dalladda amniga Yurub milay kasta si ay uga hortagto suurtagalnimada duulaan uu Shiinuhu ku qaado Taiwan haddaba maxaa la gudboon Yurub ciidan reer Yurub ah oo midaysan waa riyo weligeed soo jirtay iyo fikir hore hase ahaatee uu soo cusboonaysiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani maruu waraysi la yeeshay wargeyska Al Istanbul ee ka soo baxa dalkiisa qorshahaas oo midowga Yurub uu ku doonayo inuu ku dhiso ciidan isku dhaf ah oo ilaaliya nabadda kana hortaga colaadaha inta badan muwaadiniinta wadamada ururka waxay taageeraan siyaasad midaysan oo difaac iyo amni ah haddaba su'aasha ayaa se ah Yurub dhab ahaan awood ma u leedahay inay dhisto ciidan midaysan Moscow oo arrintan la socota ayaa si degdeg ah u fashilisay fikradaas oo wareentay reer Yurub afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa dhan dabagaale ku matashay hindisahaasi ah in la abuuro ciidan midaysan intaas oo kaliya kuma ekaan laakiin waxa ay barteeda Telegram-ka soo dhigtay qoraal ay ugu sheegtay ciidamada midowga Yurub waa inaad bilowdaan qaadashada talaalkiina COVID ama aad barataan sida loo ilaaliyo xuduudaha midowga Yurub si bani aadannimo ah oo waafaqsan waajibaadka caalamiga ah intaas kadib ciidan abuurta khubaraduna waxay qabaan inay jiraan caqabado ka dhigaya hindisahan mid aan fulaynin sida Yurub u samaysan doontaa ciidan midaysan xilli ay hadda ku tiirsan tahay NATO oo ay qiyaastii 70% u maalgeliso Washington tira aad u yar oo kamid ah dalalkan ayaa awooday inay gaaraan boqolleydan natiijaduna ma aha mid la taaban karo waxa jira sababo farsamo aan ka soo qaadno kan ugu horeeya inta badan wadamada midowga ayaa isticmaala habab difaac oo kala duwan wayna adkaan doontaa inay fuliyaan hindisahan midaysan maxaa yeelay fikirka laftiisa loo qaateen uma aha ciidamo wadamo cadow isu ah ciidan kasta waxa uu danaynayaa inuu u madax bannaanaado howlihiisa iyo kobcinta awoodiisa waxa intaas dheer riyada ciidan ee reer Yurub kuma soo dhacdo maskaxda dawladaha intooda badan sababtoo ah waxay ka dhigan tahay ka tanaasulid qayb kamid ah madax bannaanidooda kuna darso oo way dhib badan tahay in la mideeyo isir iyo dadyow kala duwan oo laga dhigo hal ciidan yaynan iloobin inay jiraan wadamo markii hore ku hoos jiray meertadii midowgii Sofiyeeti sidoo kalena wadan kasta oo Yurub kamid ah wuxuu la kulmay khatar ka duwan midka ka kala haysata waxa uu u baahan yahay xal ka duwan ka kale dhammaan dalalka Yurub ma aysan la kulmin khatar isku mid ah xitaa haddii ay jiraan hanjabaado caadi ah oo dhammaantood ku foorara bal u fiirso dalalka ku yaal badda Mediterranean-ka waxaad ogaanaysaa inay leeyihiin xasaasiyad ka dhalatay falal argagixisanimo qulqulka muhaajiriinta iyo xiisaha ay u qabaan arrintan wadamada ku yaal waqooyi galbeed waxay diiradda saaraan arrimaha argagixisada haddii aad eegto dalalka barigana waxa aad ogaanaysaa in Ruushku yahay khatarta ugu weyn iyo tooska ah ee ay wajahayaan haddii aan doc kale u wareegno Talyaanigu waa markii ugu horeysay ee uu soo bandhigo fikradda ah in la abuuro ciidan midaysan oo Yurub ah haddaba maxay tahay sababta waqtigan gaarka ah uu la yimid fikradan Roma ayaa arrintan ku baaqday kadib markii uu hoos u dhacay xiriirkii ay la lahayd Shiinaha iyo sidoo kale jaalnimadii Britain oo ka baxday midowga Yurub
laakiin mid ka mid ah sababaha tooska ah ee baaqan waa dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Talyaanigu waxa uu arkay inay dani ugu jirto huwashada magaca ciidanka Yurub. Marka aad tixgeliso waxa Roma hadda ay sameynayso, waxaad ogaan doontaa inay isku dayayso inay la socoto Paris. Emmanuel Macron ayaa ku baaqay mashruuc military oo wadajir ah oo Yurub leedahay sanadkii 2017. Hogaamiyihii hore ee Jarmalkuna waxay taageertay fikradan kadib markii ay khudbad u jeedisay baarlamaanka Yurub. waa inaan ka shaqeynaa sidii loo abuuri lahaa ciidan sax ah oo reer Yurub ah maalin uun. Arrintanna waxa uga sii daray dhaleecaynta soo noqnoqotay ee Trump uu Yurub ugu jeediyay inay ka daaleen Mareykanka marka la eego doorashada madaxtinimo ee la filayo bisha November ee soo socotana, taasoo Trump uu mar kale ku noqon karo aqalka cad. Waxay cabsi gelisay Talyaaniga oo ay ku tirtirsiisay in la dhiso ciidamo reer Yurub ah ka hor inta uusan Trump soo laaban. ciidan reer Yurub ah oo midaysan waa riyo la mid ah sidii ururka laftiisa oo xitaa ka weyn. Fikradda difaaca guud ee Yurub waxay dib ugu noqotaa sanadka 1947 markii Faransiiska iyo Ingiriisku saxiixeen heshiis isbahaysi oo ka dhan ahaa weerar kasta oo suurtagal ah oo uu Jarmalku ku qaado kadib dagaalkii labaad ee adduunka. Heshiiskaas waxaa la oran jiray Treaty of Dunkirk. Paris waxay soo bandhigtay fikradan sanadka 1952 si loo sameeyo ciidan midaysan oo ay wadaagaan iyada iyo Belgium, Talyaaniga, Luxembourg, Netherlands ama Holland iyo Jarmalkii galbeed. sanadka 1952 waxaa la soo gabagabeeyay heshiis lagu dhisayo ururka difaaca Yurub, laakiin ma helin ansixinta baarlamaanka Faransiiska taasoo dhicisaysay. fikradda siyaasadda difaaca guud ee Yurub waxay soo muuqatay markii boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Benelux ay saxiixeen heshiiskii Brussels sanadka 2003. midowga Yurub ayaa bilaabay howlgalkii ugu horeeyay ee military oo ka baxsan xuduudahooda. howlgalka ayaa ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ee qaaradda loo soo shaqo tagay ee Afrika. sanadkii xigay midowga iyo hay'adda difaaca ee reer Yurub ayaa la aasaasay. 14 wadan oo ka tirsan midowga oo ay hogaaminayaan Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ku baaqay in la sameeyo ciidamo faragelin degdeg ah oo gaaraya 5,000. warbixinada saxaafadda ayaa arrintan waxay u sababeeyeen istiraatiijiyadda difaaca Yurub ee u baahan beddelka Ingiriiska kadib ka bixistiisii xubinimada ururka ee EU. soo jeedintu waxay noqotay mid degdeg ah kadib markii Mareykanka uu ka baxay dalka Afghanistan, taas oo shaki ka gelisay Yurub ku tiirsanaanta joogtada ah ee NATO. taasi beddelkeeda isbahaysiga AUKUS ayaa la sameeyay kaas oo Yurub laga saaray. tani waxay la mid tahay dharbaaxadii ka dhanka ahayd maraakiibta gujiska ee Faransiiska ee Paris kadib markii Australia ay ku dhawaaqday inay baabi'isay qandaraas weyn oo ay ku iibsanaysay maraakiibta quusta ee lagu soo gabagabeeyay heshiis dhinaca amniga ah oo ay la gashay Mareykanka iyo Ingiriiska 2016. Ra'iisul Wasaaraha Australia ayaa xilligaas sheegay in dalkiisa uu joojiyay qandaraaska sababtoo ah waxay door bideen in la dhiso maraakiibta gujiska ah ee tamarta ee nukliyeerka. midowga Yurub ayaa fahmay inay noqotay meel ka baxsan xisaabinta difaaca Mareykanka, waxaana la soo dirsay cabsida ah sida ay u daran tahay in laga jawaabo khatar kasta oo saameyn karta dalalka xubnaha ka ah. Mareykanka ayaa weli ah quwadda ugu weyn ee militariga, waana ka ugu horeeya adduunka marka loo eego dhanka awoodda iyo mashiinka dagaalka. Washington waxay gacanta ku haysaa awoodaha warshadaynta militariga iyo xakamaynta tiknoolajiyada iyo internetka. sidaas darteed way adag tahay in la abuuro ciidan cusub oo aan si uun ula xiriirin Mareykanka. inkasta oo midowga Yurub uu sameeyay isku dayo dhowr ah intii uu jiray sida aan soo sheegnay si loo gaaro iskaashi ciidan iyo amni oo dhex mara xubnahooda, laakiin isku dayadani ma guuleysan. taas beddelkeeda waxay keeneen hoos u dhac ku yimid xoogga ciidamada Yurub iyo xataa kordhintooda ku tiirsanaanta gargaarka Mareykanka, sida aan dhammaanteen ku aragnay iska horimaadkii Ruushka iyo NATO ee dalka Ukraine. Talyaanigu ma ku guuleysan doonaa markan inuu dhiso istiraatiijiyad amni oo ka madax bannaan Mareykanka oo ay leeyihiin reer Yurub? waa su'aasha u baahan in laga jawaabo. waxaan intaas ku hakinaynaa tabinteena Tafaftir Media ee aan ku eegnay isku filnaanshaha xagga awoodda ciidamada ee Yurub. waxaad ku mahadsantihiin waqtigiina. waxaan idinka filaynaa inaad nagu xirnaataan. inta ka horeysana waa Abubakar Maxamed oo idin leh nabad iyo warsan.